Are you a millionaire? Now? No. Do you want to be? I think. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa sirtii ka dambeysay guushii Jack Ma. Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaas oo ku guuldaraystay inuu ku biiro college-ka tiro 3 jeer ah. ugu dambeyntii wuxuu si dirqi ah u dhaafay imtixaankii kadib markii uu sameeyay diyaarin iyo dadaal caadiga ka baxsan. wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo, laakiin badankoodii way diideen inay shaqada galiyaan. kadib markii uu codsiyo badan oo shaqo ah meelo kala duwan u dirsaday oo loo diiday, ayaa wuxuu go'aansaday inuu shaqo macallinnimo ah ka raadsado sababtoo ah uu ku guuldaraystay inuu shaqo taadhaanta helo. Jack Ma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishiiba. ka hor intii aanu bilaabin dhigista luqadda, Jack Ma waxa uu aad u jeclaa inuu horumariyo habka uu ugu hadlayo luqadda. waxa uuna 45 daqiiqo u kaxaysan jiray baaskiishiisa maalin walba hotel u dhow oo ay dadku dalxiisayaasha ahi ku soo degi jireen si uu ula hadlo luqadda uuna barto. Jack Ma kuma qanacsanayn shaqadiisa, waxa uuna go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu u helo nolol fiican tii uu ku noolaa mid ka wanaagsan. waxa uu bartay kombiyuutarka iyo internetka aad buuna u jeclaa. markii dambana wuxuu aasaasay website-ka loo yaqaano alibaba.com kaasi oo u saamaxay ganacsiyada iyo shirkadu ay ku kala ganacsadaan iskuna dhaafsadaan alaabta si online ah. Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China, hantidiisuna maanta waxaa lagu qiyaasaa $21 bilyan. waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ee ugu awoodda badan qaaradda Asia. waayihii iyo noloshii uu maray Jack Ma ma uusan haysan wax lacag ah uu ku bilaabo ganacsi. waxa uu ka shaqayn jiray mushaar aad u yar, waxa uuna si dirqa ugu biiray oo ugu guuleystay inuu ku biiro machadka tababarka macallimiinta. intaa waxaa dheer in waddanka Shiinaha aan waqtiga ahayn meel ku fiican in lagu noolaado ganacsina laga bilaabo. Jack Ma dhaqaalihiisa iyo lacagtuu haystay sanadihii ugu horreeyay kamay badnayn intaad haysato maanta, haddii aynay intaa haysato kaba badnaynba. ninkani wuxuu aad u jeclaa oo keliya inuu abuuro ganacsi guulaysta, taasina waa sababtuu u raacay riyadiisu aan u xaqiijiyey. haddaba waa maxay cudurdaarada aad maalin walba naftaada u sheegtaa? lacag kugu filan ma haysatid, waxbarasho fiican ma haysatid, dadka kugu dhow ama kugu xeeranay kuma dhiirigeliyaan, kumana garab istaagaan. Jack Ma ma uusan haysan qof dhiirigeliya oo cadaadiya, balse damaca xoogan ee gubayay si uu guul u gaaro ayaa ka dhigay ninka uu maanta yahay. sheekada aynu ku baranayno Jack Ma: waa suurtagal inaad ka bilowdo ganacsigaaga meel aad u hooseeyo. dabcan waa suurtagal inaad ganacsigaaga ka bilowdo meel aad u hooseeya oo aad noqoto bilyaneer. Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay meel hooseeyo zero iskuna daray liiska ugu sarreeya ee taajiriinta adduunka. 2 horaa loo samayn karaa. sharci ma aha, balse horaad ugu guulaysan kartaa. Jack Ma waxa uu gaaray guul isagoo ku jira da'diisa 30 meeyaha. 3 markii ay riyadaadu iyo hamigaaga weyn yahay, waxyaabaha hoose kuma dhibi doonaan. Jack Ma wuxuu ku noolaa nolol adag. halkaasina waxaan ku soo afmeeraynaa muuqaalkeena ahay sirtii ka dambeysay guushii uu gaaray Jack Ma. fadlan haddii aad channelkan ku cusubtahay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto si aan u soo bandhigno muuqaaladan oo kale. barta comment noogu reeb fikirkaaga ama aarahdaada. mahadsanidin.